videogan waxaan ku sameyneynaa definite integral ayaan evaluate gareyneynaa. Marka seen u evaluate gareyn karnaa definite integral ama basic integration seen u sameyn karnaa. Marka waxaan sameyneynaa markaan rabno inaan integrate gareyno midkan sida tan ayaan integrate gareyneynaa. Waxaan soo qaadaneynaa waxaan fureynaa square box, badanaa square box la furaa. Marka theta tan aan haysano theta squared weeyaan, marka 2das ayaan waxaan ku dareynaa hal, hoosna waxaan u qeybineynaa powerka oo 2 lagu daray hal ah. So midan garan kadibna square bracketkeena saas ayaan kusoo xireynaa, korna waxaa saaran limitka integrationka oo pi all over 2 ah, pi all over 2 weeyaan. Laga bilaabo 0 ilaa iyo pi over 2. Marka plus c ma laha because midan waa definite, waxay qabtaa limits of integration. Inta markaad ogaateen kadib waxa weyn intan un baan hadda simplify gareyneyna. Marka waxayna siinaysaa thetadas waxay noqonaysaa cubed, waa 2 plus 1 waa cubed, hoosna 2 plus 1 waxa weeyaan waa 3. marka saa taqaanin derivatives markaan joognay powerka hal baan ka jarayna, laakiin integration markii la joogo hal ayaa lagu daraya. marka differencegaas ayaa jira. midda kale differentiation markaan joognay powerka waxa weeyaan waan ku dhufan jirnay, intaan soo dejinaan ku dhufan jirnay functionka, laakiin integral markii la joogo waxaa soo gelaya meesha in wax loo qaybinayo, marka division soo gelaya. marka waa inaad note garaysid differencegaas. marka saas ayaa noo soo baxday. kadibna waxaan gelinaynaa square bracketka ay ku jirtay laga bilaabo pi all over, laga bilaabo 0 ilaa iyo pi over 2. marka inta aan keenay hadda waxa noo dhiman waxa weeyaan keliyata inaan simplify gareyno, marka waxay noqonaysaa hadda inaan gelino ii sheegtid intervalka ayaan gudaha gelineynaa, gudaha midan limitkan ayaa waxaan gelineynaa booski theta, oo marka hadda waxay noqonaysaa haddaan waxaan ku bilaabeynaa upper intervalka pi over 2, kadibna waan cube gareyneynaa ilaan theta way cube gareysan tahay, kadibna waxaan u qeybineynaa 3. marka waxaan ka jaraynaa hadda lower limitka oo 0 ah, oo waxaan gelineynaa booski theta isagana. marka 0 waan cube gareyneynaa, kadibna waxaan u qeybineynaa 3 tabta sida tan. markaasaan intaa keenay waa marka qaybtan waad ogtihiin 0 haddii wax loo qaybo waa iska 0, qaybtan bes ayaa noo soo haraysa oo ah pi cubed all over 2 cubedna waa 8 ma ogtihiin. marka waxa dhanba loo qaybiyey 3, loo qaybiyey 3. marka midkan haddii aan simplify gareynana waxaa noo soo baxay waa pi cubed all over 24, because 3da tan waxay la mid tahay waxaan dhan aan 3 u qaybinay, marka saan ay soo baxaysa haddaan simplify gareyn pi cubed all over 24. marka saas ayaa uga shaqeyn karnaa definite integral.